بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله انك ما تنسى تجوجي السلام عليكم horta maanta assalaamu calaykum. iyaga salaamina soo dhawaada. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. kusoo dhawaada wardoon 20 oo walaalkay Cabdi Fataax oo idin dhahaya waa ku mahadsantihiin daawashadaan daawateed. waa idinkaga mahadcelinayna guud ahaan toddobaada toos uga soo wareegatay oo barnaamijka horumarka hadda sameynay 1 week hal week ka yar weliba waqti waa carari wallah dib u laabana videogii waqtiga waa carara dib u laabana videogii oo yeerina duqduq soo noqono dareemaan laftirkii اسبوع كور aniga soo garayga soo baxay اسبوع hore waa ka fiican أنا سوي قرفته ما شاء الله soo dibaan waa soo dabaaldegay xafladii koodii luliya soo dabaaldegay maalintii arbacada وانا وانا taasaba jaanis u helin ma helin wala ina idin maad weerar laakiin maalintii dib ka dhigatay inaan ay maadahay maxaa maalinka dib arbacada ahayd koodii habeenkii al rabaano nool eber markii taas habeenkii dadku way hurdaaniyo habeenkii waxa la dabaaldegaya habeenkii bishu laba noqon rabto habeenkii kow noqon rabto in la dabaaldego saas waa sharci saas khalid uu anigu la yaabay saaxiibadayda oo la yaabay dabaaldegi sidee took meesha u dabaaldegna adig maalinka anigu dee bishu dhan bala dabaaldegataa wada soo mid ka duwan way ka sabaxa toddobaadkii markaan ka soo noqonay kadib waxaan malas videoga hore reaction ka bixinay dadka aad u xiiseynayeen qaar su'aalo badan la iska weydiinay laakiin anaga sida horan u sheegnay afeefta hadafkeena anaga waxa way kaliya in dhanka fiican aan ka fiirimaan xumaatay kala kamano toddobaadkan barnaamijkeenu ka xiisa badnaan doona kii hore sa anaga aaminsanahay naga dhadhacsan laakiin xiisahan waa xiis yar oo murug wato wallahi murug yaris wata sa ogeedeen toddobaadkan waxaa magaalada socday macallin ardaydiisa gabar ka mid ah horta macallin lagu tilmaami karaaba inteenan horta u gudbin videoga magacii uu qaadanaa title ku wataayo cusub ya ha macnaha waxa ugu talagalnay inaan isbuucaas wixii cusub socdo inaan soo qaadano ama isbuuc walba de isbuuc walba wixii cusub markaas meelaha ku aragna soo qaadana marka klibkan wuxuu ahaa klibkii macnaha ugu hadal haynta badnaa social media Soomaalida maanta iyo laga soo bilaabo xalay maanta ilaa hadda socda waa 24 saac ugu dambeeyay marka macallin ma qaan wallahi ugu dambeeyay laakiin waa ma horta waa macallin title-ku meesha ku galay waa macallinimo barna wixii asaa wax baraya ha title macallin wata yaanan ka dilin dhageystayaasheena iyo daawadayaasheenaba macallinka waxaa la sheegay in gabar oo ka mid ah ardaydiisa inuu dugsiga ku reebay markii wax dhamaaday kadib siduu sheeganaya as afkiisana ay gabadha qalad ay sameeyso quraanka ay gafta awadeed uu celiyo inuu canaantay aad su'aasha iyo jawaabtiisa la socotay laakiin wax yar aan dhageysana kilib yar oo macallinka uu ka hadlay arintaas يكسبون كلا إن مع ربهم يوم إلا محجوبون ثم إنهم أصحاب الجحيم كلا إن مع ربهم يوم إلا محجوبون أي قفتي أي قفتي إلما هن حلده رأي ودي صح وإذا دعيت عنانتي ما عرفت قلال ورهي والعناني صح عنان أقول مقدفني صح لكن كستوى قلقول جلباب كذا ما عرفت ساس لها دعيت قلقول جلباب كان مدح وقدوبتي واقرت كدب محاسميس كدم أوه كدم بجور ير واي جور سديد سن واي جلباب كذا ده ساوي هو الهري قدر الله واي طليرتها برنامج خير قدر الله واي ما هو على عروة قدر الله واي حسن كسمي قبل إن ده ذا العروة جورته مركي دعيت جلباب كذا ساس ويالي هو مرة ساس أنا ويالي كور عمل عن كور وجوكسدي ساس كور كذا سوتاعي waxaan ku qosliyaa ma taqaanaa qadar Allah waxaan isweydiinayaa ma maskaxda waxa ku wareegaysaa qofkan ma qof caadiya ma qof waalanba ma kaftamaya ma ka xaraaba eeg su'aalaha maskaxda isweydiinaysaa moogti because horta muuqaalka u jeedno oo xuquuqdiis qofka iska lama naqaan laakiin muuqaalka u jeedno waa qof nin ah shaati wato macawiis wato jeebkiisa shanlam iyo wax iska muuqda qalin iyo kaatabo si uu hadlaay iyo gacanta soo wax uga bixina qof su'aal si fiican u bixina uu eeyahay laakiin ardaygii iyo wax uu ka hadlayo ma isu qalmaa horta miisaan haddii la isla saaro wax su-aasha isla weydiinta mudan waayo ninkani horta wuxuu sameeyey arday siduu maxamed basheegii inan ardaydiisii ka mid a ayaa qur-aankii baa khaladay qur-aan buu ka dhegeysanayey sida malcamada la sameeyo qur-aan buu ka dhegeysanayey qur-aankii baa khaladay qur-aanka marka la khaldo waxaa la sameeyaa ardayga waa la yara canaanta ama la dhingadeeya isagu halkii labadii midna muu sameeyey wuxuu sameeyey ina tirad buu kufsaday hadalku cadayna waa sida quruxda horta waa hadalka muhiimadii asaan afkiis ka sheegan doona laakiin wuxuu yiri waa jujuuba marka hore uu qaqarinaya warka dambe laakiin inta ugu dambayso hal mar wax yar maqalno waa u tagtay ma okay
hadda video so marka quruxda hadalka ma rabno inaa detail badan ka Hay, qaadan laakiin- laakiin waa u tagay 8 sano jir nin weyn oo geelbeele kan ma aqaan isagaaba sheegay xitaa inay 8 tahay iyo laakiin sheekadan dee horta wallaahi horta dhinaca kalena horta ma la maqlay gabadha dhinaceeda ilaa hadda sheekadan waxaa laga hayaa hal dhinac laga hayaa odayga macalinka dhinaciisa baa laga maqlaya horta in wax dhinacii walba macnaha inuu xanuunsan yahay in la qasbayo ilaan dadka duubay xitaa anaga ma ogaan karna iyo biniaadan aan xaggan ka joogna in la qasbayo ma ognahay may gabadhii haddii la wareysto ama reerkeeda la wareysto allahu aclam horta ma dhibanihii maynaa arkin laakiin qofkii dhibaatada geystay inan yaro xitaa mustaqbal bay leedahay moogtahay qofka eriyo waa inan yaro shitay jira marka iyada laftigeeda mustaqbal bay leedahay in reerkooda ay kamarada soo fadhiisiyaan iyagoo ay dhahaan inantan yar ninkaasaa wax u geystay waa laga yar wanaagsan yahay moogta marka sida ugu fiicneed bay samayn karaan bayn anigu waxay soo qabteen qofkii dhibaatada geystay cidda dhibaatada ku dhacdayna way garanayaan hadday wax dhacay oo dhacay tahay caddeyn ma lahaya marka dhibkaasaa geystay isaga qaranayabe qirashada uu qirinaya hadda anaga intaan ka fidhnaa moogta saddexdanada ayay dadka daawanayaba qirashada uu qirinaya ma ogaan karnaa dadka kaamirada ku haya in wax dad la socdo ama ay macnaha qasbiyaan inuu waxaan uu sameyn hayaan sheeg dheh macnaha waa sameeyey dheh ma ogaan karnaa biniaadan horta ma ogaan karno laakiin inta dambe hadal iyo dhahay kuu waayo ma lagu qasbi wax jug ma lagu geystay mise maya adoo maskaxdaada degan tahay aad duubta hadalkaa malila waan ani xal alxamdulilah waqtan nimini xilli ani ninka dambe maaragtay masuul abdale qaweysidi salaadii isdukadi cashal keen seexdi wax dhibna lagu geystay aniyo ninkan saddex waxaa ku tilmaami lahaa anigu aan fikriyga de saddex waxaa ku tilmaami lahaa inuu yahay qof waalan macnaha caadi waali ah uu waalan yahay iyo inuu yahay qof macnaha ama muslin ahaan jiray oo diinta ka baxay oo macnaha gaaloobay ama gaal ahaa laakiin qur-aankii af soomaaliga wixii bartay kadib dugsiyadii iyo oralahayd soomaaliya ma hamiyaa kani macnaha soomaali ahaan maaha laakiin diinida ka hadlaya inuu macnaha qof gaal yahay laakiin ama uu ahaan jiray muslin uu ahaan jiray diinta laakiin bedesha diintii gaalada qaatay kadib ada diinta islaamka raba inuu macnaha uu ceebeeyo maan u geystay ha ama in la qasbayo qofkan oo la dhahaya dheh waxaadan sameyn waa sameeyey ani saddex saa ku qaadan lahaa waay mahay sheekada meel kalaan ka keenay wax taa u dambaysa anigu kaguma raacsanay qofka body languagekiisa xitaa ilama eka body languagekiisa marka qof la khasbaya maaha ilama eka mogta xitaa wuxuu hadallada qofka dambe hadallada isu gengeyn kara maama ku leeyahay anigu waxba cidna waxba iguma gurigeygan iska tegin iska casheeyey waa body ma garanaysaa wuxuu bixinayaa sign ah laakiin inuu waalan yahay oo kula qabaata anigu waa qabin waalan waa idinla qabaa laftirkiina waalida maxaa yeelay su-aasha ugu horeysa la weydiiyo wuxuu ka bilaabi kara mogta meesha ugu sahlan tahay qur-aan akhris uu bilaabay waxa mawduuc aan joogin uu banaanka uga baxay ha qur-aanka ka bilaabay suuradii dhan uu soo bilaabay hadda cid qur-aan ay akhrin hadda ma lahan meesha may hay ka ka waran weydiiyo mar qof fiyow hadda hadda su-aal ku weydiiyo saa ku weydiiya iga jawaabaysa su-aasha ninkan macalinka qur-aan ay akhrin lama dhihin waxba ii samey lama dhihin su-aalun baa la weydiiyey qur-aanuu la galay caadigaa ku yar aad iyo aad mayba u badinayna horta inuu caafimaad ahaan uu fiyowen maadaama aanan heli kareenin anaga laftirkeena aniga waa isku dayana laftirkeena inaan helno dadka dhibanayaasha xataa wax ka helno ma aanan helin laakiin kilibka maadaama helnay oo sida nooga muuqatana anaga waxaan qiimeynaynaa ama maxaa leedaha waxaa helno waxaa helnaa mid taa waa idinla qabaa laakiin waxaa jeclaan lahaa inaan heli karno muuqaal oo dhinacii malaha dhibanayaasha gabadha dhibka loo geystaan waalidkeeda anigu hadday sheekadani jirto ma jecli wallaahi mana doonay inay soo baxaan qofkii dhibaatada ku dhacday iyo qofkii dhibaatada loo geystay midna inay banaanka timaado ma jecli inay isaga waa la arkay wejigiisa waa daalinka dulmiga dadku waa iska ilaaliyaan wixii sharciga iyo diinta islaamka sida ku ogaanaysa inuu daalim yahay marka waxaan ku qiimeynaya daalinimada waxaan ugu sheegaya iminka inuu daalin yahay waxaana iminka intaan ka arko haddii been tahay hadday been tahay isaga hadhuu sheegay wuxuu beenta u sheegay isagu iminka afkiisan ka maqlinaa somaha inuu leeyahy dembiga u geys midna yaan iloobin caalamka hadda adduunkan ku noolna wuu soo yaraado hal qolob iska wada noqdo ujeeda qofkan wuxuu joogaa meel baadiyi fog ah qiyaasta iyo kaamirada sida looga duba ujeeda muuqaalka inuu dilan yahay mobilkan looga soo duba waa dareemaysa inuu magaalo magaalada inuu caad uga fogaya waa dareemayna maaqaan waxaan ku tilmaami karna haddii i sax tahay haddaanu waanlayn iminka qof walba maha ka soo qaado qof caadiyo qur-aankii garanayo ha aan dhibaato dadka faraa ku taagtaagin waxba dilin haka habiyo iska fadhiya maxaa dhibaatada waxaan u geystay inuu ina yaro macalin u ahaayo ogyahay ha maajka ciyaaro maajkaas ku haboon haddana macalin uu yahay waa qalad laakiin maxaa may u geyn kari kulanta hadduu qof caadiya yahay qof caadi uu yahay ma uu tagi karayaba haddana macalin uu yahay gabadhi 8 jir ah
ما aad u dhib badan tahay ama ani lama fiyo ninkan haddii ay tahay macnaha waxaan wax run ah oo dhacay ay tahay lama fiyo waxaani ma taqaanaa hadday caalamka usoo baxda iminka Soomaaliyeena un baa og moogtay hadda waxaan sumcadeena iyo Soomaalinimadeena ayay hoos u dhigaysaa Soomaali wax si jirkiiba wax loo oranay aan in ka nabad galaynin iyadoo ay dhacday laakiin ogaada waxa u maleynaa inay ahayd sanadii hore dhexdeeda ma aqaan gabar yar hadda xasuustinin oo gal kacaymiya meelahaas oo kale tu yar ma xasuusinaysaa gabar yar oo la kufsaday horta kufsiga waa wuxuu noo noqdaa anaga moogtahay sida filim yar caajis ku soo noqonaya kan hal la qabto dadka hortooda ha lagu bireeyo daayar ka ma horta runta la helay qaba ayaa lagu dadegin runta ma hadday runtahay baan sheegayaa ma ogin moogtahay waxa ma ogin laakiin hadday runtahay waxaan adeero dad badan baa ku dhiirinaya wallahi billah arreen dhalay arreen hableen la dhashay hableen dhalay doona waxaan intaana caadi nagu noqon bulshadeena aan ku dhaqan laga qabto waxyaabo igu yaabna markaan muuqaalka raadinayna daayta hada xasuusatiin waxaa jira dadka comment ka wada bixinay dumarka laftirkooda ma fiicna moogta inay ka galaan waa noola jabiyahan oo ha noo jabto baasha gaalo waa jabeen camal oo maahan inay raggii oo dhan ka wada dhigaan calaashaan dhahayn oo nimanka waa kasmeeqa idin sheega maxay magaca noo bixiyeen faarax إنك وهذا أنا ما فاهم مقعس أباس بشو كيمة محمد إبراهيم اللي دهني إنك قاسوا أنا نص تسمع محمد على قول فاهم فرح مدو لكن وحأركيس وحلو أركيس فرح يدي فرح لو باس لكن فرح ما هي فرح يلا متقنا فرح يدي وكو روح بل أنا جاي إنك الرجل كونا فرح يدي لكن إنك كذا كان فرح ما هذا كوا دولي كانوا داير كان قف عادي ما ورينك بحكو عيني صار دو أبتي فيري وحن هدي رويين هدي رويين مركب سوق قوينا أنا أقول كوجر هدي رون نقطة يربدوب هلا دولي هدي مركب عين كرينا لكن أنا محد كنت يدين إنك أفكي سوق قرن يابه أفكي سوق قرتة محاكد نبي أفكي سوق قرتنك محا مسكين كير لقربه لما قصب كريه يا لما قصب كريه أو محل قصب يا قف كان محل قصب يا كان وحن باجر لكن ما مقالد يكجرتي أو أنا ما قام مقالك مقدمي وها لكن مقالد يكجرت أيانتان إن وحالده سومالد وركي شيء وحا كجرو ور ولا بولا شيء وحلا كجرو وقمنا هريو تمر بالله كجرت وقمنا هريو ما تقنا إج هدي أهان هيد وح أن أكتنا عادي كان سوماليين إن بدن بسرعة عادين هبلا يرلا كوف صدق وقت لكن معلم القرآن دقاية أنا مهم مقال أنا مقال لكن إن أنه هبلا هير كبارنا وحش كعادي هيدو كاس هو بي وأنا بس أنا لما يابيو هدي رون تاي شكل لما يابيو سومالي دي وحن عادي بكسر نقول كوفتي سيسا وقلدم كوفتي كداوني محو كداوني أنتوا عندما تجيو حلو كلام خلدنا عناني كلام دامي واحد دامي شيء كوفصني خلد كلام دم سيدو هدايا عفتح شيء حدا ده حسوسني سنة عافمات هانديس أنا مالينا قف كينو سفيعنان bulshada aad kala fahmi karin qof iska soo qubaysto labisan oo agmara waxa u maleeyay inuu caafimaad isfaya ninkan uu caafimaad qaba ninkan leh waan garanay waqtigu cashiye xalay inuu seexday garanaya ee quraankii garanaya xafiisan anu markii ma khaldana marka inta yar baan ka khaldanay inuu fiyoweyn ani caafimaadkaas ani waa u duba haddii youtube channel sameysay waxaan prank tahay noo sheegade ayada youtube sameysay may abti wallahi haddii hor noqoto waxa uu sameeyay oo soo ogaado macnaha cadeen la soo helo إنك أبتي هل الدليل محد هل الدليل قرطة لقوا هدي رنقط هاو قلت لنا محد والله أرت شريعة ذي كحرنت شريعة الإسلام محيك قبتها إن شريعة اللي عليها إيش يكونوا لأني مال شريعة كجرت أو مال أنا إن شريعة اللي عليها إن كانوا الأوجاد دي أرنت سحكتها مرقاتي ذي الله هلا محل مرقاتي وحاب وقفل هذا مرقاتي مو بهناني سجبرس دي جرأة سيد يتهاي وله أبو روال فهم كرا كل هذه دكتور لوجي أو دكتور كعده مو وضع ما دامه سيستم في عنه هذا محل دي ان اي وحنا تجابين كرين وحاب اقول فيلم بعدين تسعه لكن مع هذا مد كويديه معلن هذا هدي على هنا قبل تجرك وكفصدي كورم هذا كو هذا قبل ما احنا كهر وفلالك لا سميسا عمله ايسن لكن قبليه كلا ايسن شيء قبلنا اي شيكتي مسمين كريا فلالك لا كب كهر معناها فاتحه كوا لقي يا بالله انه عيبتيس استوره واغي هوريت وهذا فيسون الى سو بخينا معقول سيدو حتى او دقميو واحد مودا هذا وحسال عادي وانا كلا وان ويسيستي غوريغان تغي واسكا شخدي وان عشي وان تكدي من ناغتي سو تغي با waxay wan meedho goon iska tukado غوريغان تغي macallin dugsi managa qabtad u tagtay warwa wax qashin waa may xasuusna wadan waxa eriga haday maqla wuxuu dhahay uu teembooday xitaa wuxuu dhahay waan jujuubay wuxuu ka xishoonaa inuu isticmaalo eriga muur uu ka xishoon ka baqay ma ogi dulliga laakiin teemboodku sameeyna laftirkeeda ani waa hadalkiisa waa ka sheegsan ani si fiican ma fahmin laakiin hadalkiisa waa ka sheegsana whatever arkina wala soconaa sheekadan ilaa sheekada waa raacina laakiin waxa jeclaan lahayn la socono kulay wasaafilay Soomaalida wala soo qaban doona waalidkii gabadha dhalasa malayna
inuu Waa hal la soo soo heli qabana doonaa. orla dadkana anaga maahan ma in yaan la soo soo heli qaban doono umaleynaya la hor keeni doono maxaa la baraha bulshada la wareysan doono ayagna si ay u arkaan inay wax run tahay inay beento haddii ay ku cadaato Soomaaliya waa la soconaa sheekada weli waxaan sameynaynaa haddiiba noo suuragelaysa anaga laftaga inaan raadin karno annagu inaan raadina isku dayno familkaas haddii aan helno waalida filmka hadda meel ku ogtaa walaal nala soo xiriir xagga hoose commenting noogu soo qor anigu wejigooda ma doonin Ma- wejigooda waxyaalahan diidana waxaa kamid in wejigooda dadkaasi ay public yimaadaan ethnic maxaa lahaa qiimahana kumaba jiraba in dhibane ama dhib loo geysto waxyaabaha hadda oo miidiyada soomaalida aad u isticmaasho waxaa kamid a dhibanihii oo dhiban maxaa ama dhaawac gaarsiisan ama qoorar haddii wax la gooyo kale aa lasoo qaadana kamana dhaa laga gelinaya waxaas waa sheeko dheer waa laakiin harumada hala daa arrintan waa arrin dhagaha bulshada ku cusub haddayna waa isla soo qaadna haddaa xasuusataan aad iyo aad horta anigu waxaan markaan maqlay raggan aan saaxiibada nahay baa kala fadhiyo waan u qaadan waaye waxaan wax dhici kara ma waa brank mar horena facebookan ka akhriyay intaan meesha imano waxaan iska dhaafay mogta waxba kama soo qaaday xataa iyagu ma sheegin waxaas laa waa wax ma garanaysa wax dhici kara ma haysin de macalin baa inantiis yar inta qol la tago dabeetana cashiray gaftiyo hadana ku leeyahay waxyaalo qur-aankay gaftiyo ku leeyahay ninkan sharci waa lagu qaadaniyo xukunka ugu culus ee qof bilaadan lagu qaadi kara lagu qaado ayaan ka hor dhicnaa asugna maxkamadda waa xasuustaan oo maleynayo waagi waddanka la joogo waxyaaba ugu qosolka badna waxaa ka mid ahayd waalidka hadduu macalinka cunuga soo dilo oo kaleeto war iska dhaafa macalinkaaga waayo anidaas waxaa garaysin waa arrintaas macalinkaa anagu macalinkaa ku jira maalin kale u dhigan doona laakiin macalimiinta malcaamadaha macalimiinta malcaamadaha ciyaalka dhibaato badan bay marsiyaan may dhanka ma ka geleyno adiga maxaa kaa soo marsamiro anigu way la dili jiray de arday la dili jiray ma jira qof nafta keeni jiray godaas laga saari jiray jinac baa lagu guri jiray macalinkaaga tusi xagga ku dambeeya hadda maalin kale ka hadli may macalimiinta anaga qiimo weyn u haynaa oo wixii macalin waay laakiin yuusan xumaynin hal qofood oo saan wax sameyn oo kaleeto muu maleyn inuu xumayn doono hadda ma la dhihi karaa macnaha haddii muuqaalkan uu macnaha ku faafo meelaha baraha bulshada ama facebook youtube meelaha oo waalidiintii soomaalida arkaan ma is dhihi karaa waalidiinta soomaalida way ka amin baxayaan macnaha macalimiinta dugsiyada ma saameyn karta macnaha ma la dhihi karaa macalinkii macalin kale qof saa furxumeeyey macalin digtoonow si fiican waalidiinta hadda ma isleena waalidka waa inuu feejignaada muhiim ma aha macalinkan diin quraan uu dhigaa iskuul uu dhigaa max macno ma sameynayso macalimiinta guryaha dadka ku caawiya oo guriga ugu imaada ani waxaan aqaanaa kenya xasuusana oo tuushinka la dhihi jiray xamar xataa way jiri jirta macalimiin anaa laftigii hadda kahor ku shaqayn jiray waa anoo yar xasuustee qofka markii uu ciyaalkiisa guriga ugu imaanayo waalidku iska warhayan way is arkayaan ilaa ciyaalku xaggu kuu fadhiyaa ama qolku ku jiraa waa maamadii ama aabihii wuu maqli karaa wax alaal wixii jiro laakiin cunugaada 4 saacadood subax 7 bilaaba ilaa 10 ku jira bareega marka la soo daayo wuxuu ka warhayo ma jirto bareega inuu ka soo daaha laga yaaba ani waxaan qabaa waa inuu jira connection waa inuu jira macalinkii haddii xitaa uu soo daaha iyo hadduu soo daahin iyo si uu u dareemo waa inuu jiri kara waa macalimiintii iyo dhaca iyo indhahoodana inay taagnaadaan weliba waxaan hooyooyinka haysta gabdhaha weliba in indhahooda mar walba u shidnaataa la rabo kii wiilaha waxaa asagoo iska celinaya dhibaatooyinka aynu soomaalida leenahay waxaa ka mid ah ama waalidkeenu ay inta badan aanay sixin ama ay khalad ku sameeyaan oo kale in qof aadan aqoon aad si yaroo fudud ka aaminayso wax walba waa dee nin aad aqoon baad carruurtaad u geynaysaa markasoo dhalanaysa hadhow markuu soo dilo ama wax kale kusoo sameeyo may waa macalinkaagii faraha ka qaad dhibaata ma jirte u tag maxaad ku dishay muxuu garan waayey iisoo sheeg haddii ilmahaaga wadayso waalid oo dhaqan inaga noqotay dhaqankii in macalinkii la aamino qofkii macalinka uu soo dila lalahayo oo macalinkaaga soconiyo waxba lagama soo qaaday lama weydiin xitaa muxuu kugu soo dilay maxaad samaysay waxaa ma jirta macalinka ay soo dila waa caadi lagu leeyahay macalinkaaga weliba waxaan ku ogaa waalidiinta waxay dhihi jireen may yaa la dhegeysan cunuga war cunuga in la dhegeysta macno maaha dadkan yaa loo maleynayn maxaa leeyahay dadkan waddanka ma joogaan waxay u hadlaan sida gaaladii oo kaleeto maaha macnaha saas maaha cunuga waa in la dhegeysta mararka qaarkood maxaa mararka qaarkood 90% ana waxaan aaminsanahay ciyaalka waxay sheegaan run waay ilaa cunug yaroo beenta ku tababartay asoo yar la tababara maaha laakiin ilmaha inta badan runay sheegaan inta badan wax allaal haddaa tiraa waryaha jaamaco cabdi wasaaka maxaa dugsiga lagu soo sameeyay xabad kugu tirina waxan baa ka jira nafiso halkaas fariis soo fiiris macalinku inta fariisaan soo yiri cali inta joog mid kugu tirin kara yaa dhageysanaa marka waalidka dhageysan la iska rabaa waalidka dhageysan la iska rabaa mawduuc ayaanu kusii dheeraan diini naga gelaysaa wax walbaa dhici karo xumaan ma aha lama balaqto allahuma balaqdo xumaan ma rabno muhiimad waxaa waaye inaan farta ku fiiqno meeshii wax ka jiraan xalkii isla raadinayna marka
see xalka u aragna niyo xalka ha anigu waxaan oran lahaa halka malcamadaha markay noqoto niyo qof walbo haddaad qofkii ilmihiisa qur-aanka bari karo gurigaa ku barniyo weli badanta lama heli karo waalidkii inuu shaqeynaya laga yaabaa ha taasina waa kiis meesha ku jira ama wareyso ilmahaaga markuu iskuulka ka yimaado malcamada ka yimaado wareyso maxaad aabo soo dhigatay hooy maxaad soo dhigatay weydii waa waxyaabaha dhankaas waa ka dilanaya laakiin ani waxaa dhihi lahaa macalimiinta macnaha macalimiinta dugsiyada iyo waalidiinta inay xiriir isla sameeyaan oo mar walba ay connection yeeshaan iska warhayaan sida cunugii xaalkiis meeshuu maraya ciyaalkii iyo waalidkii inay xiriir fiican ka dhexeeyaan macnaha xiriir saddex geesood ah dugsiga macalinkii caruurtii iyo waalidkii waa idinla qabaa labadaba qodob waa labada qodob ugu muhiimsan in ka warqab uu jiro macalinkii ardaygii waalidkii oo mar walba ah waalidkii iyo ardaygii iyo cunugiina mar walba asaga ah haddii uu jiro sida hadda adduunkana ka jirta iskuullada waa taqaanaa cunugeeda markuu kaa soo dahda iskuullada waddamadan oo kaleeto ama oo la saako kale xanuunsan jaa waa in la report gareeya la cunugii maanta waa xanuunsan macalimiintu waa ogyihiin macalinkii fikaari ahaan imaan lahaa xataa wuu sii qorana waa soo aruurineynaa suun mawduuca nooga fogaanin xalka inta u naqaano waa intaas waayo ah in ka warqab uu jiri karo laba dhinac inuu jiro waalidkana inuu cunugiisa mar walba ka warhaayo uu weydiin karo wax allaale wixii soo dhacay wareysan karo si u noqoto maxaa la yidhahdaa ka warqabkaas mid isku xiri kara guud ahaan maxaa la bridge ku wada dhexay waalidka iyo dugsiga macalimiinta la iska aamina laftirkeedana macna hal aamino waa ayadana meesha ku jirtaa laakiin aaminaad waxaa ka muhiimsan yaan la is aaminin oo waxaa waaye haddaan la is aaminin qof walba fiijeegnaan uu ku jiraa maaha jaa marka wuxuu macalinka wuxuu wari anigu waa lagaa warhaaya sheekh adiga laftirkaada teembaha bixinaysa ilaali yaa la aaminaa ka dhexeeya sida filinka jaanus yaa la is aaminin waay waa soo xireynaa haddii aanan wax kale ku daraynin waxaan u malaynaa fakta badan hadda daan u helin maadaama wixii aan haysanin oo dhinaci kale aad aan heli karin macnaha asugna baartituugeeda baartituugana way imaanaysaa ani filinkan soo ku dhamaada malaynaya aniga filinka musalsal ma dhamaanay qaybta baartituuga la soconaya markaa ogaad in gabadhan waxa ku dhacay ay dhab tahay ama dhab ay ahayn markaa waa laakiin dulligan afkiisuu ka sheegana dulligan aad kale ma u baahno wixii kale waa qabanaynaa laakiin afkiisa intuu ka sheegana laftirka aniga wax kama sheegi kara ilaa caddaynaa hel aydan baa jirin toddobaadkan waan u duuduubayna intaas kusoo reebaynaa hadduu ilaahadmo waxaa jiro sidoo kale muuqaalka kelimaha youtube waxaa naga heli kartaan podcast sida adigoo keliya ku qoraayo wardoon podcast ama wardoon 20 meel walba oo podcast laga dhegeysto waa dadka dhegeysta doonaya dhegeystaan dhegeysta keliya maqalka waxaa maqal keliya macnaha muuqaalka youtube-ka facebooka laakiin dhegeysiga waxyaabaha uu dadku u anfici karo waxaa ka mid qofka soo shaqeynayo kaleet muu baahan inuu muuqaalka daawado lagu iska gashan karaa jagac baabuurka adoo wadida keliya waxaa samayn kartaa qofkii baabuur haysta xataa waa wuu heli karaa oo ma u baahna keliya wax micno kuma samaynaysa inaan daawataa saddexda nin meesha fadhida aanan dhegeysatin dhegeysi iska dhegeyso wixii macnaha muhiimadda waa hadalka waxa laga hadlaya iyo wax si wax isugu dabalaacayaan yab maaqaan wax kale haddaan ku dareynin waa duuduubeynaa macaslaamay dadka sida caadigan ha iloobina haddii aan sii sheergaraysaan waxaa laga yaabaa fikirkeen inay dad kale ka helaan dadka xataa nala wadaaga idinka laftirkiin waa ku mahadsantihiin commentigiin haddaa soo baxsataan oo dhahdiin calaashan waxaa ka qabtiina haddii qalad aan ku jirno laftirkan waa saxayna laakiin haddaad subscribe garaysaan laftigeeda waa wacnaan lahayd taasa ugu muhiimsan taasa ugu muhiimsan aw maamooyinka whatsappka sii sheer gareeya gruubyada aw facebooka sheer gareeya waa ka tegaynaa marka insha Allah hadda sheer gareynaya waa gruubkayga waxaa waaye qabiilkay gruub samaysta saaxiib facebook xaggaas ku sheer gareeya aad baa idin salaamaya caafimaad badan idin yahay kulanti wanaagsan assalaamu calaykum